السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داوديال ميل كستو الدنيا ka joogtaan ku soo dhawaada barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Media TV kuna soo dhawaada barnaamijkeena aan ugu magac darnay dhacdooyinka maanta ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka oo idil daawada in aad muuqaalkan like aad saarto waxa ay nooga dhigan tahay in aan idin soo badino barnaamijyada noocan oo kala ah qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhacdooyinka maantana waxa kamid ah doorasho aan weligeed ka dhicin Mareykanka oo ka socota Donald Trump oo baraha bulshada ka calacalaya ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo xaalad degdeg ah geliyay maamulka Tigreega iyo Ilhaan Cumar oo markale guul taariikhi ah gaartay Soomaali guulo waaweyn ka gaaray doorashada ka socota dalka Mareykanka iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dawladda weeraray rag kufsi iyo dil iskugu daray gabar 14 sano jir ah oo la xukumay intaasina waxay ahaayeen qodobada aan uga hadli doono barnaamijkeena dhacdooyinka maanta kuna soo dhawaada haatan asagiyo faahfaahsan ugu horeyntiina golaha wasiirada dalka Ethiopia ayaa 6 bilood oo xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Tigreega ee waqooyiga wadankaas xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa sheegay in xaaladda gobolkaas ay la socon doonaan oo ay maamuli doonaan koox uu hogaamiyo taliyaha ciidanka wadanka arintan ayaa timid kadib markii uu xalay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo ku amray in ciidanka ay tallaabo military oo ka dhan ah ay qaadaan TPLF ciidanka Tigreega Abiy Ahmed waxa uu sheegay in TPLF ay weerareen saldhigga ciidanka federaalka ee gobolka Tigreega ayna isku dayeen inay boobaan hubka culus ee ciidanka federaalka waxa hawada ka maqan khadka internetka iyo telefoonada gobolka Tigreega gaar ahaan magaalada xarunta oo ah ee Mekelle Abiy waxa uu sheegay in xukuumadda uu dulqaadkii ka dhamaaday kadib markii ay Tigreegu soo gudbeen qadkii casaa tan iyo markii uu xafiiska yimid Abiy Ahmed sanadkii 2018 xiriirka Tigreega iyo dawladda federaalka ma ahayn mid wanaagsan xaaladda ayaa xumaatay kadib markii ay Tigreegu soo qabsadeen doorasho u gaar ah taasi oo golaha federaalka iyo aqalka sare ee xukuumadda federaalka ay ku tilmaameen mid sharci darro ah arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddo bilooyin ah ay sii kordhisay xiisadda u dhaxaysa dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Tigreega waxay sidoo kale arintan ku soo beegmaysaa xilli maalintii shalay ahayd 32 qof oo amxaare ah lagu dilay gobolka Oromiya TPLF ayaa hore waxa ay ugu eedeeyeen maamulka uu hogaamiyo Abiy Ahmed inuu mamarsiyo ka dhiganayo fayraska cudurka corona si uu awood u sii hayo maadaama waqtigiisu uu ku ekaa bisha Oktoobar dhanka kale waxa dalka Mareykanka ka socota doorasho aan weligeed ka dhicin dalkaasi oo u dhaxaysa madaxweynaha hadda talada dalka haya ee Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Joe Biden musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee hore u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden ayaa hoggaanka u haya natiijada codadka la tiriyay ee doorashada dalka Mareykanka shacabka Mareykanka oo shalay u dareeray doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa ahayd markii ugu horeysay ee dad inta la eg ay isku soo baxaan doorasho Mareykan ah codadka la tiriyay ee dadka ayaa waxa ay yihiin kuwa aad iskugu dhow iyadoo oo Joe Biden uu hadda helay codad gaaraya 61 milyan halka Donald Trumpna uu helay 60 milyan hase ahaatee codadka loo yaqaan Electoral College oo ah kan lagu kala guuleysto ayaa waxa uu Biden helay 223 halka Trumpna uu marayo 174 codadkan ayaa hadii uu helo 270 cod Biden si rasmi ah wuxuu u noqonayaa madaxweynaha Mareykanka ee 4 sano ee soo socota xalay waxaan hogaaminayay inta badan codadka gobolada ama xitaa dhamaantood halkaasoo kuwa iga soo horjeedana ay codad ka heli jireen laakiin saacadihii dambe wax badan ayaa isbedelay malaha sixir bay ahayd hadalkaasi quusta u eg waxa bartiisa Twitter ka soo dhigay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump Ilhaan Cumar ayaa mar kale ku guuleysatay xubinimada aqalka wakiilada Mareykanka kadib markii ay la tartantay musharax ka socday xisbiga jamhuuriga Umar Maxamuud Ahmed Faatax oo ay waalidiintiisa Soomaaliya ka soo haajireen ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo loo doortay inuu ka mid noqdo sanadka gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka Umar ayaa ku guuleystay doorashadii la qabtay isagoo oo u tartamay kursiga xaafadda 62 halkaasi oo ay guushii ku raacday Umar Faatax ayaa markii uu guuleystay kadib waxa uu la hadlay idaacadda BBC-da qaybteeda afka Soomaaliga waxa uu u sheegay in uu diiradda saari doono 3 arrimood oo uu doonayo in uu ka soo dhalaalo muddada uu xilka hayn doono waxbarashada ayaan rabaa in aan wax ka qabto oo waxaan rabaa in waxbarashada ilaa heerka jaamacadda ay noqoto mid bilaash ah oo ardaygu uu ku dhigto dhinaca guryaha dad badan ayay dhibaato ka haysataa
oo waxaan rabaa in aan kordhiyo guryaha dadkana laga caawiyo kirada. dhinaca caafimaadka waxaan rabaa in qof kasta uu helo kaar caafimaad oo bilaash ah. waana saddexda arrimood uu sheegay Cumar Maxamuud Afrax. dhacdooyinka maanta dhacay kuwooda ugu waaweyn ama loogu hadalka badan yahayna waxaa ka mid ah mucaaradka ugu weyn ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay boorarkii maanta ay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay Muqdisho uga fujiyeen kuwaasi oo ahaa boorarkii xayisiinta uu ku sameysanayay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraalkan: waxaan cambaareynayaa gabolfadka ay ciidanka ilaalada madaxtooyada ay ku fujiyeen boorar ku dhignaa kasoo horjeedka xarunta baarlamaanka oo aan ku soo bandhigay sawir muujinaya musharaxnimada xilka madaxweyne ee sanadka 2021. ciidanka ayaa shirkadii boorarka lahayd u sheegay in uu amar kaga yimid madaxtooyada. naguma cusba dulqaad la'aanta musharax madaxweyne ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxay si tani tijaabo ku tahay Ra'iisul Wasaare Roble oo ay mas'uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta loolan ay u siman yihiin musharaxiinta xilka u tartamaya ee madaxweyne Farmaajo uu ka mid yahay. haddii uusan musharax madaxweyne xamili karin sawir xayisiin ah, sidee buu tartan doorasho ugu adkeysan karayaa? tani waxay cashar hordhaca u tahay waxa uu maagan yahay musharax madaxweyne ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan ugu baaqayaa taageerayaashayda, musharaxiinta kale, saxaafadda, bulshada rayidka ah iyo waxgaradka Soomaaliyeed in ay falkan guracan si isku mid ah uga dhiidhiyaan. ugu dambeyntiina barnaamijkeena dhacdooyinka maanta waxa aan ku soo qaadanaynaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa xukun dil toogasho ah ku riday 2 eedeysane kuwaasi oo lagu helay dambi ah inay kufsadeen isla markaana dileen Nimco Cabdi Maxamed oo ahayd gabar 14 sano jir ah, taasi oo meedkeeda dhawaan laga helay xaafad ku taala duleedka Boosaaso. Puntland ayaa horey u toogatay dambiilayaal kufsi lagu helay iyadoo oo la mariyay hanaanka garsoorka. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa horey u ballan qaaday in cadaalad la marin doono dhammaan kuwa dambiyada geysta. soo gali jeestay gabadhi labada gacan gadaal inuu saa aaga xiray labada gacan ayuu ceejo dhab ku siiyay. markuu ceejo dhab ku siiyay ani banaanka istaagnaa wuxuu ugu dhahay gabadh waa dhimatay ee xagee geena. waxaan ku dhahay meesha geenays geeyon ku dhahay haday dhan waa ku celinay hadal waa maqdu weeday. markaas uu ugu dhahay waa soo baxnay. markaan soo baxnay gabadh wuxuu dhigay Nuur Salaad meel u dhow fadhiyay gabadh meeshaas uu dhigay. horey uu dhigay markuu hore dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday. gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar waa ka sii tagay. taayirka gaariga maray oo madaxu kaga istaagay, dhinaca madaxu ku aadistay, taayirka madaxu kaga istaagay waana ka sii dhaqaajiyay gaariga. ma nooleen markay dhimatay markaa uu soo ceejiyay. gaariga gurigan gadaashiisa soo marnay, wadadan dheer baan soo marnay, gabadhii halkaan aan dhignay hortaana arkaysay baan dhignay. gabadhii madaxeeda saas buu yiri soo ma aan soo sawirada dhan wala haya soo ma saas kii uu tiilay. gabadhii wali xataa qaarkeed dambe halkaas uu jiray, madaxeeda halkaas uu yiri, gacanna halkaas soo marnay. taayirkii baa madaxa kaga fuulay, halkaasaan ka dhaqaaqnay, wadadaan dhan baan marnay. labadiina wada labadeena wada socono. may gabadha marka hore meed bay ahayd. wax dhaqaaqa oo meesha maray oo dada ama baabuur xaalki wax dhaqaaqa gaari baa aragnay. gaariga aniga leerka waa noo dansanaa. meesha mugdigaana waxa way gaariga doo leer dansan yahay cidna ma aragto. waxay adiga baariga adiga 5 saac meelaha tahay. 5 saac هذا محمد هذا واحد نجيبتي ماشي aan gabadhii meesha aad nijooto kiiskii baraha bulshada la dhex wareegayay oo la marinayay oo ahaa gamanta yar oo meydkeeda laga helay duleedka magaalada Boosaaso. ciidanka booliiska oo hogaaminayo taliyaha qaybta CID-da iyo saldhigyada iyo xafiiska xeerlaantu ay si wada jir u wada baarayeen in maanta uu soo gabagabay baaritaankii ilaahay kiis wixii macluumaad ah iyo kiiska conclusion kiisana aanu bariis wax ku wareejino maxkamadda darajada koowaad gobolka Bari si ay go'aan uga soo saarto hadii ilaahay. bulshadana waxaan leeyahay hal isdajiyo, waxaan ku maqanahay cadaalad iyo waxa weeye waqti kastaba inaan gelin doono qof kasta oo dambi gala inaan cadaalad geyn doono. maxkamaddan cadaalad baan ka sugaynaa iyo garsoorka iyaguna waa dhageysteen waqti badan bay ku celceliyeen aawa go'aamada gaar lahayn iyaga u taala laakiin anaga sugaynaa insha Allah go'aan khayr baan ka sugaynaa.
guud ahaanna intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii aan ugu magac darnay dhacdooyinka maanta kooda ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka oo idil daawade haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aad nagu soo biirto oo aad YouTube-ka subscribe noo saarto daawade muuqaalkan inaad like saarto waxa ay nooga dhigan tahay in aan idiin soo badino barnaamijyada noocan oo kala ah mahadsanid